السلام عليكم ورحمة الله كلا xiiso badan oo muuqaaladii caafimaadka iyo cilmi nafsiga barnaamijka caawa waxaan doonayaa kusoo qaadanaa sidee baad u wanaajin kartaa caafimaadkaaga maskaxda ama maanka ama nafsiyaadkaaga guud ahaan caafimaadkiisa sida aad u wanaajin karto talooyin ayaan muuqaalkan kusoo gudbin doonaa muuqaalada aan idinla wadaagno inta badan waxaan ugu talagalnay wacyigelin iyo qofka inuu ka helo aqoon caafimaad si uu wacyigelintaas ay ugu tarto noloshiisa wax balse ugumana talagelin in qofka isku tashkiisi uu yiraahdo aniga calaamadaha la sheegay aniga weeye ama hebel weeye macnaha ugumana talagelin haddii aad isku aragto qaar ka mid ah calaamadaha tilmaam ka bixin muuqaaladayna waxaa la xiriiri kartaa dhakhtar isaga ayaa talo bixin caafimaad ku siin doona haddii rabbi idmo marka ugu horeysa muuqaalkeena qodobka ugu horeeya haddaan guda galo waxa weeye waxa aad muhiim u ah inaad ogaato caafimaadka maskaxda ama maanka inuu aad muhiim u yahay sida caafimaadka jirkeena uu mid muhiim u yahay oo macnaha kama muhiimad yara oo bulshadeenusa muhiimadda ay siiyaan ama fahanka ay ka haystaan aad ayuu u liitaa tusaale xanuun gaas ayaa kugu dhacay oo bagga ayaa caawa lagaa hayaa waa galgalanaysaa waxa aad isugu dayaysaa oo raadinaysaa sida aad u heli lahayd dawo xanuunkaas kaa yaraysa halka haddii murugo ku hayso haddii xiriirka bulshada aad ku xumaatay haddii dhibaato ka haysato calaaqaadkii haddii nafsiyaadkaagu uu isku yani aad dareemayso ciriiri fara badan ay aad u adag tahay inaad tala bixin caafimaad raadsato ama aad isku daydo in tiraahdo xanuun baa ku haya xanuunkan waa xanuun nafsi ah waxaa u baahan tahay dhakhtar taladaas inaad hesho marka taasna waa qodob aad bulshadeena uga maqan arrintaas waxa weeye waa talada ugu horreeya aan bixinayno inaad muhiimad siiso caafimaadkaaga maanka si aad muhiimad u siiso caafimaadkaaga jirka waxaa kaloo iyadana qodobka labaad ah inaad u naxariisato naftaada iyo dadka kaleba sidoo kale oo naftaada sida aad ugu naxariisanayso maxay tahay waa inaadan in badan isku fiirsan murugo aad u fara badan oo waqti badan joogta waxaa la yiraahdaa murugadu sideedaba haddii 2 isbuuc ay ka badato xanuun ayay isku bedeli kartaa marka waxa waa haddii aad murugo aragto oo ama cabsi ama yani nafsadaada ciriiri aad dareemayso yeysan waqti badan kugu qaadanin haddii aad awoodi weyso inaad ka baxdo oo awooddaada macnaha aad isticmaalayso coping strategies kala isticmaala ay shaqeyn weyso waxaa habboon inaad tala bixin caafimaad raadsato marka arrintaas waxay keenaysaa inuu caafimaadkaaga maskaxda ama badqabka uu wanaagsanaado haddii aad nafsadaada u naxariisato sidoo kalena dadka kalena iyadana naxariis u muujiso iyadana qodob aad muhiim u ah weeye waxaa kaloo iyadana qodobka saddexaad ah inaad raadiso qaabab kala duwan oo aad ku taageeri karto maankaaga maskaxdaada markaad isku aragto xaalad nafsi ah waa coping strategieska waxaa la yiraahdo coping strategieska waxa waaye qofka hadduu diqad aad dareento sida aad uga baxayso macnaha oo aad nafsadaada u ilaalinayso inay arrintaa aysan dhaawac gaarsiinin ayaa waxaa la yiraahdaa coping strategieska qofka marka waa inuu yaqaanaa haddii dhibaato loo sheegay maalan jubba waxa loo sheegay aad uga nahay waxaa la yiri hebel ayaa dhintay oo aad u jeclaa ama hebel asaas ku dhacay marka waxaas waxay keenayaan nafsadaada dhaawac yani waxay keenayaan xanuunkaas marka inuusan maskaxdaada saameynaya la rabaa oo aad istiraatiijiyad adeegsatid aad nafsadaada ka bixiso yani dadka qayliya ama dadka hadla ama dadka ka hadla markii loo sheego dhimasho oo kale yani waxay aad awood bay u leeyihiin macnaha inay ka baxaan markiiba laakiin dadka ay dhici karto inay aamusaan ama isku celiyaan ama nafsadooda dib ugu celiyaan arrintaas oo hintii wixii oo dhan ay dib isugu celiyaan nafsadooda ayay dhibaato ku tahay marka istiraatiijiyooyinkaas inaad aad u raadiso haddii ay ku shaqeyn weyso inaad dhakhtar la xiriirto sidoo kale dhakhaatiirta inta badan hadda yani adduunka life waxaa jira coaches oo inkastoo Soomaalida aysan lahayn laakiin anaga waxaan isku dayi doonaa inaan life-ka dad badan baa nagala soo xiriira ama WhatsApp-ka nagala soo xiriiraan ama nagala soo xiriiraan qaybaha kala duwan oo Facebook ugu horeeya waxay ka qayb qaadanaysaa yani tala bixintaas iyo qofkaas in laga dhageysto oo dhakhtarka uu la sheekaysto waxay keenaysaa macnaha nafsiyaadka qofka inay caawiso haddii dawo u baahan yahay in dawo la siiyo marka tala bixin in aad u raadsato aad bay muhiim ugu tahay qodobka afraad waxa weeye waxaad ka ilaalisaa caafimaadka maskaxdaada waxyaabaha xun ee baraha bulshada aad ugu badan oo ha noqoto cayda aflagaadada xumaanta qabyaaladda
colaadda dilka waxaasoo dhan oo baraha bulshada aad ugu soo batay waxa weeye saameyn nafsiyeed ayay qofka ku yeelanaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaad ka taxadarto oo aad iska xadido waxyaalaha aad daawanayso inay noqdaan wax positive ah oo nafsadaada dib ugu soo noqon kara, fikrado xunna aan kugu soo siyaadinayn. Marka waxa waa tusaale laakiin baraha bulshada waa aragteen waxyaalo fara badan ayaa la soo geliyaa. Waxaas marka waxaa la rabaa in algorithm ku shaqeeya waxa adiga ku anfacaya oo nafsadaada dhisaya, quality-gaaga soo saaraya, tayadaada soo saaraya, inaa wax barato kugu kordhinaya, inaa aqoon hesho kugu kordhinaya, inaa shaqaysato dhaqaale samaysato kugu kordhinaya. Waxyaalaha aan waxaas kugu kordhinayn inaad iska yareyso waxay keenaysaa inaad ilaaliso caafimaadkaaga iyo badqabka maskaxdaada. Waxaa kaloo iyadana qodobka shanaad ah inaad la xiriirto nafsadaada oo aad la noolaato waqti xaadirkan oo aadan ka fikirin wixii la soo dhaafay, sidoo kalena mustaqbalka laftirkiisa la tafaasiishiisa inaadan gelin. Taas waxay ku keenaysaa raaxo nafsi ah oo nafsadaadu raaxo ayay dareemi doontaa haddii aad arrintaas fuliso. Marka waa qodob aad muhiim u ah inaad nafsadaada xilligan la joogo aad la xiriirto oo aadan inta badan ku mashquulin wixii la soo dhaafay iyo waxa mustaqbalku waxay ahaan doonaan. Qodobka lixaad, tillaabooyinka inaad qaado oo aan tilmaami doono si aad uga nasato diiqada. Haddii aad dareemayso xanaaq, warwar, murugo, kuwani waa dareen caadi ah oo dabiici ah. Qof walba wuu yeeshaa inuu xanaaqo, inuu warwar dareemo, inuu murugo dareemo. Marka waxaa la rabaa inaad aqbasho dareenkaas oo aad qaadato. Marka aad aqbashana sida aad uga bixi lahayd dareenka yacni coping strategies u adeegsan lahayd aad ayay muhiim u tahay. Coping strategies-ka waxa waaye macnaha habka looga baxo murugada, yacni waxyaalaha negative-ka ah oo ama murugo ha noqoto ama diiqad ha noqoto ama cabsi ha noqoto, waxaasoo dhan inaad samayso. Marka laylis ayaa jira, layliskaas ayaana halkan qaar ka mid ah kaaga tilmaamayna. Waxa waaye kow inaad hal gacanta aad saarto laabtaada kow, midda kalena aad dhafoorka saarto, kadibna aad neefsato neef qoto dheer. Exercise-kaas haddaad gasho coping strategies ku qorto YouTube-ka qaabka loo sameynayo waa arkaysaa. Marka neef qoto dheer mid dibadda aad u soo saarayso macnaha iyo gudaha mid aad gelinayso labadaba inaad samayso. Yacni sidoo kale qodobka macnaha layligan waxaa loo baahan yahay ciyaalka laftirkiisa inaad barto oo si uu diiqada iyo waxaas uga bixi karo. Waxaa kaloo ayadana aad muhiim u ah inaad diiradda saarto marka aad sameynayso arrintan oo aad ku mashquusho oo waxyaalo kale aadan qabanayn. Aad ayay muhiim tahay coping strategies. Coping strategies-ka yacni inaad warwarka, diiqada, cabsida waxyaalahaas oo dhan waxay kaa saari karaan haddii aad taqaano habka looga baxo. Marka habkan waa layli laakiin habab badan baa jira oo qaar ka mid ah muuqaalo kala duwan aan uga sheekeyno. Insha Allah muuqaalada soo socdana aan uga sheekeyn doono. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaad taqaano murugo ma ku qabsatay qaabka uga bixi lahayd nafsiyaadkaaga aysan u saameynin. Qodobka toddobaad oo ugu dambeeya oo talada ugu dambeysa ah inaad codsato caawimaad haddii aad dareento inaad daal fara badan arrintan aad ku wareertay, caawimaad la'aan dareemayso. Waxaa muhiim ah inaad khabiir caafimaad raadsato oo talo caafimaad ku siiya. Sidoo kale dadka bixiyaasha dhakhaatiirta ka shaqeeya xanuunada nafsiga inaad la xiriirto oo waqti la qaadato aad bay muhiim kugu tahay. Haddii aad toos ugu heli karto magaalada aad joogto, haddii kalena live-ka aad isku daydo internet-ka inaad kala xiriirto. oo internet-ka laftirkiisa wuxuu soo kordhiyay macnaha dadkii laftirkooda macnaha inay toos dhakhtar nafsi u tagaan aad bay u adag tahay. Laakiin hadda xilligan la joogo maadaama uu adduunku isku bedelay digital, dhakhtarka inaad adoo gurigaaga joogto la xiriirto isaga laftirkiisa qofka xoogaa culays baa ka yara degaya. Waxaa arkaysaa bukaano kula soo xiriiraya oo dhahaya kama hadli karo waxaan, waan ka yara qajilayaa ama waan ka yara baqayaa waxaynkaas, ama sir inuu yara arrintaas sir ay ku taho kale buu dareemayaa dareenkiisa. Sababtoo bulshada ayaa wacyigeeda wuxuu yahay in arrintan la isku ceebeeyo oo qofka nafsiyaadkiisa haddii ay burbursan yihiin lagu ceebeeyo. Marka guud ahaan muuqaalkeena waxaan rabnaa qodobka ugu dambeeya inaad caawimaad mar walba raadsato oo aadan iska ilaalin, dhakhtar la xiriirto, talo bixin raadsato. Arrintaas waxay kaa caawinaysaa inuu aad hesho talo caafimaad oo muhiim ku ah. Annagana waa nala soo xiriiri kartaa haddii Rabbi idmo.
tala caafimaad diyaar baan kula nahay. Asalaamu calaykum.